fadlan iigu sheergareeya culimada iyo mashaayikhda taqaana ama riyooyinka fasirta warani waa dhinta wallahi billahi markii afraada dhimanaya waa fahmi la ah meesha layga haysto war asxaabi waa idin salaamay oo dhawaada meel kastoo joogtiin dhamaantiin dhibkii haysto waxa waa ma taqaanaa waxaan dhimanayaa markii afraad noloshayda 2010 ugu dhacday 2011 ugu dhacday asbuuci la soo dhaafay ugu dhacday xalay u dambeysay ugu dhacday waana riyo igu soo laalaabanaysa wallahi oo billahi tallahi been ka sheegin ilaahan ku dhaartay igu sheergareeya waxyaabaha aan fahmi la ahay waxa kamid ah oo aan la yaabanahay qisada koowaad igu dhacday waxay igu dhacday 2010 tii koowaad waxay igu la dhacday waan jiifay xaafad waxaan jiifay nin adeerkay ah baan jiifay anigii wiil kale aan ahayn waan xanuunsanay markaas waxa igu dhacday malaria qofkii yaqaan malaria waxa la jiifiyay subaxii baa kaniini hurdo la siiyay waan jiifay 5 saac markii la marayo ama 11ka am markii la marayo yaa riyo waxa ii bilaabatay ah in magaalada dagaal ka dhacay dagaalkaas gurigii aan deganayn nin ku soo dhuntay maxaa la raadayay xabada shabaq looga dhigay gurigii anigana xabad dirbi ku dhacday ugu soo laabatay sujuudi iga dhacdan saas ku dhintay 7 saac markaas leeyahay duhurnimo markay tahay yaan soo kaca anigu wiilkii soo kiciyay waxaan dhahnaa keenniyo ma raacaysa aniga meeshan waa ku dhintay ma joogi karo dagaal baa dhici raba dagaal baa dhacaya saambay noqonaysaa baba waa la waday dagaalkaas wallahi oo billahi oo tallahi waa u dhac been kama sheegay wallahi oo billahi tallahi 11 markii la maray anna aan leeyahay magaalada hana laga baxsho aan ka baxno magaaladan 11 markii la maray oo dhac dagaalkaas qisada labaad waxay ugu dhacday annagoo magaaladaas isla magaaladaas banaankeeda degan oo dagaal la jiraan yaa waxaan ku riyooday habeen in magaalada hoobiyaal lagu soo tuuray soo waxaan leeyahay samba u jiifaa hoobiyihii samba noo dul maraya markaa yaani waxa iska soo qaadaya magaaladii oo kale dusheena noo maraya hoobiyihii samba u jiifaa marka waxaan ku riyooday hal hoobiyo kamid ah inuu tiiradiisii gaabiyay uu wajiga iga dhacay oo aniga iyo reerkii inta meesha deganeed baan ku wada dhimanay subaxii markaan dhahay saasa xalay igu dhacday hooyo saasa xalay jirtay ee run miya حالة مقالة هو بيالا لقول تورا جوكتان مقليني اللي يجري والله هذا بينك وش شيء تي قدام بيسحبين أسبوع هذا الصوت دافع وحي يقول لك عظيم واتشي في مقالة أنت كلا لما قبيلة إزدقالي سي أنا جاب حشقكم اللي قبيلة ماشي دقن وان صو على الريد حبطي دعي سام مقالة أركي أنا وسكت أحس عضو وصو على الريد حافظ بان صو قال لي يربع في الدسم ماشي وبعدين المية ديال إسلامه ورحق ماشي بصوت دونتي نمبا ركبة دربي كسب بودي هو بيسان أركتدي كواد أركان بيلح يقول فتان والله هذا اللح كو يلا يسدح يأفر يشان يلح حبضة يسدب تشوق يقول عميد كم يقول فتان هل كاسا كود أنت حلا قدام بيس مركا حلا ركبة نسيرة مرنا أدو مرة يرى أسكاب هالكية dhibaato waxay ka taagan tahay murankaas nin kamida ragii aan ismuranaya baxay qori buu soo qaatay sijeedkii aan sii jeeday oo halkaas wadnaha dhabarkiisa ah iyo iga dhufta aasi halkaas ka soo boodo wadnaha afkiisa wadnihi oo saas dhiig u soo tuuray banaanka u soo baxay yaa la leeyahay war dhakhtarka loola ordo aan hurdadii ka soo boodo saakin marka waxaan waa wax idaba joog waa fahmi la ahay waa yaabanahay waxaan goorta iga dhamaanayaan fahmi la ahay wallahi war walaalayaal igu sheergaray culimada wax fasirta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قلبي أنا جلست على الشانل كأنه واحد ليه سوري دواد هدي أتي أمرك كوباد أسوب بقول الشانل كأنه فضلا سبسكرايب ليه كم بلاك فرص يدون نقطة داودها كوباد يداودها برنامج شدينا فيديو جهر دعي ساد أود شدين عم بقى داونيسين فيديو جهر دعي سيدي صور جاي وويل اللي رأى ويل كان رون هاتي فيديو جيس ما كان دقيستي عم موضوع وكهد لاي عن دقيستي رونتي مروان نحي مرنواي يابي مروان نحيو وحن إسر ويل كان مركزتو رياضو وحكو رياضة يا وحشرع هكو رياضة وحشرع إيه هدنا الشر تسيدو وقو رياضي أي نقنسا وحكستو وقو رياضو وحكستو ومسكح دي سجليو تبتي وقو رياضي أما تبتي
oo maxaa la dhahay ku arkay ayay noqonaysaa markuu hurdadii kasoo kaco oo yiraahdo waxaasaan ku riyooday ama waxaasaa xalay aan la kulmay isla dariiqadii isla tabtii isla maxaa la dhahaa laba mustacaanayay mawduucii ayaa dhacaya waa arrin runtii isweydiin mudan weeye markasta uu wiilkaani ku riyoodo arrin mucjiso ah oo yaab leh waxaa dhacdo arrintii uu ku riyooday bidabti sidii ay ahayd oo ugu riyooday ayay u dhacdaa waa meeqa jeer wuxuu yiri ilaa iyo waqti dheer wey riyada wiilkan ay kusoo noqnoqonayso ma ahan yacni riyo shalay mise maanta mise doraa timid ma aha waa riyo waqti dheer kusoo noqnoqonaysay wey siduu isaga afkiisa ka sheegayay riyadan wuxuu yidhaahday waxay igu soo noqnoqonaysay muddo dheer ilaa 2010 ilaa alcaanka oo la taagan yahay ayay igu soo noqnoqonaysay buu yiri wuxuu ku riyoonayaa isagoo la dhibaataynayo ama dhibaato loo geysanayo ama mindi la gelinayo ama wadnihiisa xabad lagu dhufanayo amaba maxaa la yidhahdaa magaaladii uu deganaa markaas madaafiic lagu garaacayo tabtii uu ugu riyooday bay noqonaysaa markii waxay ugu darnayd markuu ku riyooday magaaladii madaafiic lagu garaacayo oo dukun daako magaaladii ay noqotay uu joogay markaasoo madfacyaho hoobiyaal lagu soo tuurayo magaaladii laga wada qaxayo maxaa la dhahay isagii dadkiisa faamilkiisa gooni wada qaxayaano markuu soo kacay oo indhaha soo kala furay oo soo kacay uu maxaa la dhahay xagga eegana uu kusoo kacay kusoo waabariistay ayadoo magaaladii uu deganaa markaa amaba uu joogay madaafiic lagu garaacayo tabtii dariiqadii ugu riyooday iyo tabtii ugu riyooday ayaa madaafiic loogu garaacayay markaasaa dadkii ka wada qaxeen oo ka wada carareen dariiqadii ama tabtii sidii uu ugu riyooday in madaafiic magaalada lagu garaacay madaafiic magaalada lala dhacay uu isagana uu ka cararayay ama dadkii iyo magaalada wixii deganaa ay ka cararayeen ka qaxayeen dariiqadii oo kale ayay noqotay markuu maxaa la dhahay ninka intuu soo orday maxaa la dhahaa mustacaan dilayay oo wadnaha xabadda ka gelinayay subxaana malakul quduus runtii waxyaabaha qaybtood bini aadamku wuu riyoodaa oo wuxuu ku riyoodo iska riyo calwasaada ama wax dhici doono ama meel kale ka dhici doono ama wuxuu ku riyoodaa wax yacni iska khayr ah oo khayrkii yacni khayr kaleeto u bedelma tabti ugu riyoodaa noqona tab kale noqda ama bini aadamku riyoodaa wax khayr lo intuu ku riyoodo ba wixii khayrkaa qof ugu riyoodo qofkii wixii khayrkaa hela laakiin qof uun shar uun ku riyoonayo oo shartii uu ku riyooday haddana arkaya oo indhihii saaraya waa arrin runtii mucjiso ah waaye wuxuuna codsaday wiilkan in culimada mufasiriinta ah ee riyooyinka fasira ee mawduucyadan qaabilsan in loogu sheergareeyo si wiilkan arrintiisa ay maxaa la dhahay jawaabta uu doonayo riyooyinkiisa fasirka jawaabta uu ka doonayo ee ugu fasiraan wuxuu idinka codsaday qof kastoo soomaaliyeed oo wiilkan videogiisa daawaday amaba daawan doona wuxuu ka codsaday in loo sheergareeyo mashaa'ikhda iyo mufasiriinta riyooyinka in loo sheergareeyo si wiilkan mawduuciisa ay wax uga dhahaan isagana ay u qanciyaan oo qalbigiisa ay u dejiyaan because qofka markuu muddo dheer uu ku riyoonayo waxyaabo shar ah haddana sharti uu ku riyoonayo sida ay ugu riyoonayo ee u dhacdo oo kow ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn intuu ku riyoodo intaasoo jeer ah arrin runtii isweydiin mudan weeye waana arrin yaab leh weeye runtii lianno arrintaani markaad adiga ku riyootid magaaladanoo laga kala cararaya haddana wixii aysan waxba ka ahaynoo laakiin ay riyo iska ahaydoo dee magaaladu degan tahay wax dhiba jirino wax dhiba imaaninoo maxaa la dhahay maalmahan soo socdo walaa bilahan soo socdo wax dhibaato aysan dhicin adiga waxaad aaminaysaa waxaana wax iska riyo shayaadiin iyo waxaas inay ahaayeen laakiin haddaa ku riyootid magaaladan rogmatay oo madaafiic lagu garaacay oo qaraxyo lagu garaacay oo xabado dadkii lala dhacay oo dadkii wada qaxayaan oo dadkii wada cararayan haddaa ku riyootid oo adigiyo hurdo aa ku riyootid oo haddana aad soo kacdid magaaladiiyo tabtii ugu riyoonaysay ah oo sidii madaafiicdii u dhacayso oo qaraxii u dhacayo hoogyo bi u dhacayo dadkii qaxayaan oo dadkii kala cararayaanoo haddaa ku riyootid taasi mucjisay kula noqon lahayd runtii arrin isweydiin mudanna weeyaan in laga fakarana u baahan wiilkaana wuxuu u baahan yahay runtii in loo sheergareeyo videogan oo culimo badan loo gaarsiiyo mashaa'ikh badan loo gaarsiiyo si ay uga soo maxaa la dhahay faaloodaan wuxuu yidhi anigu waa dhintay videoga marka ugu horeysan daawada waan la yaabay waan dhintay uu yidhi anigu waan dhintay 1 maaho 2 maaho 3 maaho intaasoo jeer baan dhintay buu yidhi anigu waan dhintay laakiin waa noolah waa idila joogaa way sheekada waa wiil dhintay run ahaantii dhintay oo intaasoo jeer dhintay haddana soo noolaaday ayaan dhihi karnaa arrin mucjisaa weeye videogan u sheergareeya meel dheer u gaarsiiya
لايكتا iyo shareta iyo commentiga qurux badan ha ka bakhaylina ra'yigiinana iyo waxa idin ka aaminsantihiin qaybta commentiga noogu reeba waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu